waxaan halkaan inta usoo galnay waxaa bilowday scholarship-yadii bilowday marka waxaan rabaa inaan muxuu ahaa ka hadalno wax yar oo la yiraahdo dhalinyarada xoogaa waxaa ka hadlaysan time management wax la yiraahdo waxaana title uga dhignay success is a game of numbers يعني guusha waa ciyaar aa ku guuleysanay sida hadba nambaradaada u dhigto internetka ka xuna u maleynaa Muhammad markasta waa kuma soo qabsanaysid waa kana marka title-keena waxa waaye guusha horumarka waxay ku xiran tahay hadba sida nambarka adiga u ciyaarto saa u xariiftanta ciyaal xamar hadaan hadba saa nambarada ugu xariiftanto ay ku xiran tahay why success is a game of numbers ma la dhihin game a number of games lama dhihin game of numbers abayo sticker-ki yara oo let's talk ahaa wajiga ka fuulay aniga ma iga saaran yahay isigoo dhan wajigaagii u qariyay okay now okay habibi setting inaan taga waay sticker ma ujeedaa saa u qaado ma aqaano yaaga yaqaano sida la isaga qaado hadda okay hadda miisaaran yahay weli أنا وجهك وأود جدا كله ما قاستي كركست شيء hadda wuu yara roon yahay waaw iyagu ka waxaan ku soconaynaa dhalinyarada sida habar yar Muhammad waxa waaye caaw waxa uu soo galay maadaama xoogaa arkay application scholarships furan oo deeqay waxbarashada bilaha soo socdana sii furmi doonaan insalnaska horaantiisa time management-ga dhalinyaradeenna ku liitaan waxaan niri why success is a game of numbers maxay guushaadu u tahay inaad degsato nambaradaada oo priority aa kala siiso yani number 1 maxaan qabanaa number 2 maxaan qabanaa yani guusha waxay ku xiran tahay hadba saa nambarada u prioritize garaysaa u kala qaado waa title-ka because waxaa arkay dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta oo scholarship lagu sheegaa groupyo badan oo Hindi ama Nigerian leen ama Pakistan ama waxaas ay leeyihiin waa ku wada jiraan xaqiiqadii waxa waaye scholarship-ki waa available maanta groupbadii iyo link iyo TikTok waa soo wada dhigay kuwa aan fiiriyay oo la apply gareyn karo oo waliba Soomaaliyana ay ku jirto listiga marka waxaan isku raacnay in scholarship-yadii available yihiin marka procrastination waa hadii ardaydeena intay maalinba group ay galaan group Pakistan aan ku jiraa group Hindi aan ku jiraa meel kasta oo la soo dhigay scholarship aan ku jiraa guushu ma aha marka waxaan rabaa Aamina iyo Muhammad iyo cidii kale oo talo nagu dareysaba in dhalinyarada aan kala hadalno sideeba loogu guuleysan karaa adoo waqtigaaga maamulay luqadii Ingiriiska ahayd ayaa lagu dhibanaa oo dad badan oo ardayda kamid ah ayna aad u garanaynin xitaa iyagoo bajulaara luqada wadanka aad loogu liitaa sidee loo prioritize gareyn karaa luqada annaga shaqooyin badan aan ka qabanay macallin Soomaali oo ku fiican inuu ardayda baro ardayda ay soo heleen jiro oo hal bil ka codsan inuu bilaash noogu baro ardayda wuuna ila qaatay macallin kale oo Nigerian oo IELTS ku takhasusay jiri isagana bilan ka codsaday maadaama aniga samafal aan waxaan ku sameeynayo dalkayga iyo ardaydii dalkeenan ay dhibaatadaas qabaan isagana bilow ii wada imtixaan uu ka qaadayay level uu kala saaray which is good thing inuu qof walba ogaado level ku joogo casharada halkaas way ka sii soconayaan howlo badan waa ka qabanaynaa aniga Aamina xitaa waxaan ku mashquulsanahay saan u heli leen fursado kale oo ardayda laga caawin karo luqadda laakiin luqadda imtixaankii xitaa waxaan qorshe ku jirnaa inaan arday dadaalka badan oo galaasyadaasi macallinka Nigerian-ka IELTS-ka lagu diyaarinayo oo aan u bedeli doono TEFL iyo aan kusoo kordhin doono iyo Duolingo in 4 arday 2 wiil iyo 2 gabdhood oo Soomaali ah xataa isku dayi doono inaan jeebkeena ka sponsorno
si ay imtixaanka u galaan يعني امتحانك ايلتس كو نيروبي لو aadaa shaqo badan waayo qofkii waa inuu diyaarad raacaa waa inuu muxuu ahaa Kenya nolol ka helaa waa inuu imtixaanka halka ka galaa marka maxaan soo helnay jaamacado aan focus ka saari doona awal baa jireen laakiin anaga u jeesanayna inay Soomaalida loo helo jaamacadaha Duolingo iyo TEFL ku xiraayo hadda xataa waxaan arkaa Sweden maanta mid ah oo bedeshay Sweden total waxay adapt gareysay new regulation oo English proficiency ah oo C1 iyo waxaas ay u kala bixisay oo secondary-ga haday ardayda iskuulka ku soo qaataan wadamo badan ay u fududahay luqadda Ingiriiska lagu dhigo way iska daysay IELTS-kii wixii dadku ku xireysay system cusub ee Sweden adapt gareysay marka systemnadaas sidee uga faa'iideysan karna anagoo isku leeminayno English Cambridge ma haysataa Duolingo ma haysataa TEFL ma haysataa marka ardaydii xataa struggle wali ku jiraan TEFL-kii xataa ama Duolingihii diyaar uma aha yani dad yar ah stage-kooda taagan yahay laakiin si aan u dhiirigelin ardayda Soomaaliyeed waxaan tusi doonaa dad ayna weligeen la kulmin aqoon u lahayn annaga ardayda aan hawada iska baranay ardaydeennii ah oo ubadkeennii ah inaan ku abaalmarino ardayda dadaalka badan oo luuqadana yaqaano oo bajularka haysto oo masterka raadinaya 2 gabdhood iyo 2 wiil oo raas kamboona ilaa raas casayr Soomaalida degto ay ku jiraan anagoo u eegayn qofka meeshuu degan yahay laakiin hadba ardaygii dadaal badan gabar iyo wiil u xisaabinayna in 4 qofood ka bixin Duolingo ama TEFL halka qof imtixaankiisa $300 waaye Duolingaasi waa $70 waxaan rabaan ka caawin doonaa mock examska inay sii galaan oo isku tijaabiyaan imtixaanaadkaas marka waxaas oo dhan dadaal waa wadnaa laakiin ardayda maxaa laga rabaa ardayda waxaa laga rabaa time management inuu qofka procrastination ku noolaado uu daawado uu dugaashado guusha uu linkiska iyo maalin kasta gruubada badan inaa gasho oo linkiska laga arkaayo ama lagu soo share gareynayo scholarshipska dan kuugu ma jirto yani dantaada saas ma aha 10 qodob oo aan sameeyay ayaa jirto oo YouTube-kayga taalo oo ardayga raaci karo waraaqaha laga rabo baasaboorkaaga dad badan xataa baasaboor haysan bank card haysan ID-yada qaardada haysan marka waxaas oo dhan wax ku fudud waay qorshe sida timekaaga ugu samaysan leed caawa ayuu daaran yahay topigeena waxaan ku wareejinayaa Aamino iyo intii kale hadal ku dareys Mohamed waa jooga soo dhawaada alright assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aniga waxaan rabaa inta aan qorshaha iyo numberka iyo intaan loo gelin inaan kala hadlo ardada marka ugu horeyso go'aanada dhinaca waxbarashada aad ka qaadanaysiin waa go'aano life and death aan nolol iyo u dhaxeeya iyo geeri waa in aad go'aan fiican qaadataa lama raba hadhow drop out inaad noqoto waxbarashada nusku soo dhaafto arday badan aan aragnay oo waxbarashada nusku soo dhaafa waa inay daacad kaa tahay inaad waxbarato go'aankaas inaa horta aad si daacadnimo inaa u gaartaa la rabaa haddii kale waxay noqonaya wixii intaa bilowdo inaad dhammayn weydo markaad waxa bilowdo oo dhammayn weydana waxay ka xun tahay inaadan bilaabin iyadaa ka xun inaad inta bilowdo dhammayn weydo oo dhex ku dhaafto baa ka xun sababtu waxay tahay qalbiyan ayaad u dhimanaysaa xanuuno kale ayay leedahay wixii aad rabtay inaad samaysood samayn weydo marka horta kow qorshaha oo hadda barnaamijkan uu ku saabsan yahay marka ugu horeysa waxaa ugu ma kaa go'an tahay inaad wax barato maxaa yeelay waxaan ogaanay oo annaga hooyooyin aan nahay annagana waxbaa soo barannay in ay muhiim tahay wax markaa baranaysid horta inay kaa go'an tahay hebelaa baranayo anna waa ku dayanayaa lama rabo hinaase iyo masayr iyo qof la iska dabagelaayo ma la rabo waxaa la rabaa adiga ma kaa go'an tahay taas waa number 1 number 2 waxa waa inaad saani u doorato aad uga baaraan degto maadada aad ku takhasusayso ood baranayso waxaa jira waxbarasho furan iyo waxbarasho xiran waxbarashada furan qofku wuxuu rabo oo ku takhasusi karaa ka waxbarashada xiran waa inaad topiga adiga rabto kaliya ku takhasusto waalidiinta iyaguna hadday halkaan nagula jiraan aad wiilmihiina sabood gareeya laakiin aad ha u faragelinina dadka wax baranaya idinka ma aha iyaga waaye canugu waxa uu rabo inuu barto u dhaaf ha ku qasbin
wixii aad adigu rabto inaad baratay laakiin waqtigu kuu saamixi waayo waxaan oo dhan experience uga hadlayaa sababtu waxa ay tahay caruurtayda waxaa soo martay qof 3 jeer isbedela intuu dugsiga sare dhiganayo kanaan rabaa inaan barto hadhow jaamacadda waxaasaan badana baran haddana toobi kale marna ma faragelinaynin maxaa yeele aniga maaha qofka wax baranayo asaga waay laakiin talo iyo tusaale ayaa la garab taagnaa marka sidaasaa laydinka rabaa ardayow haddaa wax baranaysid fadlan marka hore go'aan fiican qaado marka labaad waxa aad baranayso aad uga fakar arrinta kale oo aniga aan Yasmiin iyo gruubkan ku kaalmeyn kara waxaa ka mid ah oo maadaama aan life coach ahay qofka waxa uu baranaya qaabka uu u research garaynayo oo u ogaanayo maxaa u fiican waxa aad baranayso wax kasta waa la bartaa yes ma xumo wax walba inaad baratid laakiin waxa aad baranayso waa inay exactly noqdaan waxa hadhowta ka munaafacaadsanaysa waayo waxaa aragnay dad baranaya wax aanayba waxba ku helayn you see Yasmiin hadalka siin doona iyo Nawaal dad baranaya waxaanu hadhow waxba ku helayn waa inaad marka ka fakartaa not now kaliya ka fikiraysid marka aad wax barashada dhamayso gaabka u dhaxeeya 4 sano iska jaamacadda ugu badan 4 sano waay 2 sano kala ku dar 6 sano waxaa laga yaabaa inay kugu qaadato ilaa intaas oo inta wax lagugu lahaado amaarta daymihii lagugu lahaa iska sugo 6 sano waxaa ku dartaa 10 sano ama 14 sano 20 sano oo hadda dhiman shaqooyinkee jiri doona kuwee baabi'i doona waa inaa hadda kasii fikirtaa shaqooyinkee jiri doona ood ka shaqayn doontaa ilaa inta ku indhamadoobaato hadhowtina aadan waxba ka antifaacan lama rabo marka qorshayaasha abbaaya idiin sheegayso iyo nambarada way macno badan yihiin maaha oo keliya qorshe kooluu kaliya maaha maxaa barane ma kaa go'an tahay waxaan in aad barato inaad waxbarasho sare aado because higher education iyo educationka kale isma laha higher education waxaa waaye waxbarasho hankeega inuu sarreeyo lagaa rabo in aad ku jahduudo lagaa rabo inaad hadhow drop out ka soo noqoto ay facshir iyo foolxumo tahay markaa taas go'aan ku gaarto haddana maadada aad ku takhasusayso ilaa meeqa maada ayaa kuu furan oo aad ku heli kartaa boorso stuudiyahan amaba maaragtay deeqahan waxbarasho ilaa meeqa maadaa kuu furan meeqa field aad dooran kartaa ya meeqa field ayaad dooran kartaa haddana hadhowti wixii aad baratay ma yihiin wax aad hadhowti ka manaafacaadsan doonto ma maqlaysaan waxaa uga baxaa luuqadda ingiriisiga right now xilligan la taagan yahay waa must joos maaha must waaye waa waajib haddaad rabto waxbarasho sare inaad luuqadda ingiriiska barato carabi haddaad taqiinay waaba kasii fiican tahay waayo adoo Soomaali ah luuqadaada Soomaali ka sayso aw luuqad carabi wax ku soo baratay haddana ingiriisi waa the more aad luuqada badan taqaan waa the more aad wax badan iyo fursad badan helayso laakiin dad waxaan arkaa aniga haddaa carabi aqaano ingiriisi ma baahan aniga haddaa faransiis aqaano ingiriisi ma no ingiriiska waxa waaye international language waaye jaamacad kasta iyadoo wadankeeda luuqada looga hadlaayo kaliya maahan inaad ingiriis ku hadashay rabtaa marka please ingiriisiga iska xoojiya markaa bilaabaysiinna meel sare inaad ka bilowdo qasab ma aha ardayga si fiican u dadaala 6 months 6 bilood haddaa xooga saarta luuqada meel fiican aad naftaada keeni kartaa kabacdina waa sii baran kartaa oo waa sii xoogsan kartaa maya doorasho ma aha waa must waaye waa waajib inaa haddaad waxbarasho sare rabto ood rabto jaamacad dibadda ee inaad maaragta ka hesho koorsooyin free ah waajib waaye ingiriisiga inaad barato ma aha wax halkaas iyo halkaas goohaya ma aha carabiya aqaanaa jaamacadaha carabta waa laga yaabaa inay kugu qaataan laakiin kuwa yurub iyo reer galbeedka oo kulli loo wada han weeye ma kugu qaadanayaan af soomaaliya aqaana ma kugu wada qaadanayaan faransiis basaan ka saana ma kugu wada qaadanayaan marka xad ayaa jira waa ka baxayaa ismi waa nasana marka idinka sii hadla thank you
muudkii awli ku jirta abaayo ها عدك ها مهند هبري هذا تايم يسوقل مهند نوالا كحجينينا I never give up مهند ما جوكتا وكدع ماشي انترنت ها نوال هاي maxaa ku daraysaa abaayo macaani aada u mahadsan tahay ani macallin aan soo ahaan jiray macallin dugsi sare waxa iigu adag oo arday igu dhaho waxay ahayd macallin dugsigii sare waa aniga dhameeyey maxaan bartaa markuu halkaa igu dhaho waxaan dareemi jiray qofka kale inuu gacanta ii geliyo mustaqbalkiisii oo ay adag tahay inaan intaan wax u dooro waxaas uu wax ku noqdo waxaan kaloo dareemayay inay tahay mas'uuliyad oo aanan wax u doori karin sababtoo ah haddii ay iswaafaqi waayaan waxaan u dooray iyo waxa uu rabay ayaduna mushkulad bay yeelanaysaa hadhowna aakhire iyo adduunba la xisaabtankeeda ana yeelanaya abaayo aamino si weyn bay uga hadashay hadaayo waxaa ku bilowday Yaasmiinay time managementiga maanta dhalinyarteena waxay u baahan yihiin wax kale maaha waa in ay waqtigooda uga faa'iideeyaan wax adduun iyo aakhiraba u leh waxtar u leh tusaale ahaan abaayo aamino waxay aad ugu celcelisay maanta barashada luqadda Englishka inaysan ahayn wax uu qofku doorto si uu ugu hadlo ama ugu xirxiriiro ee ay tahay wax waajib ku ah maadaama ay siinayso fursado tusaale ahaan ani Puntland aan ka soo jeedaa mara waxa laga wada hadlayay dhalinyaradii haddii tahriibkii ku bateen waa maxay wadada kale u furan markaasaa la yiri wadada u furan waxa way in scholarship-yada apply gareeyaan oo sidaasi legal ah ee adduunka ku galaan oo waxaan dhihi lahaa maanta waxa haysataan internet maanta waxa haysataan dadkii mentoriska ahaa oo wax bartay hortiina oo wax yaqaanay oo adduun aragoodu sareeyay sababtoo ani aamino waan dhageysanaya aamino yarba anoo yar dhageysan jiray ma dhahayo sidii dhalinyaradii kale dhihi jiray aamin anoo yar baan ku dhageysan jiray marka aamino anoo yarba iyadoo yar dhageysan jiray caawa aamino waxa isu kaaya keenay waa wax aad u yar waa mobile Yaasmiin internet iyo TikTok intaas isu kaaya keentay maanta marka fursadaha ay haystaan waxa weeye fursadda internetka waxay kaloo haystaan fursadaas internetka waxay u sahashay inay helaan YouTubes iyo PDFs iyo Telegrams ay casharo badan ka buuxaan oo wax ka baran karaan iyo sidoo kale inay helaan dad ayaga dantooda ka naxaya idinka hadda maanta ilmaha Soomaaliyeed mid yaqaanaan meesha ay kala joogaan iyo meelaha ay kala joogaan iyo qabiilada yihiin laakiin kulligeen waxaan uga dhaqmaanaynaa waxay tahay ilmo kasta oo bedela hankiisa waxbarasho oo horey u socda wuxuu bedelayaa hab nololeedkiisa iyo xaaladda dhaqaale ee reerkiisa amina waxay ku celcelisay waxa aad baranaysid ha noqdo wax ka soo go'o qofka bini aadanka ahi wuxuu markuu ka soo go'o wuxuu jeclaysanayaa jacaylku marka muxuu keenayaa waa sidii dhihi jireen love is blind oo ah jacaylku waa camal jacaylku waa waxa dulqaadka keenaya sababtoo ah jacaylka faraha badani wuxuu keenayaa inuu qofkii u sabro dhibaatada waxaan kaga imaanaysa assignments baa imaanaya trips baa ku jira field trip baa la aadayaa books baa la soo gadayaa expenses badan baa la samaynayaa macallin raysiista ah baa lecturer ku noqonaya all these things waxa ka xaydaya oo indhaha ka laabaya waa halka aad u socotid abaayo waa ku dheeraaday waxaan ku soo koobayaa nin odaya oo Dr. Jamaaludiin la dhaho amaalina la hadlayay wuxuu yiri kalkacayo gabadha rabtay inay medicine ka dhamayso gabadhaas maalintii medicine ka bilowday bay sawir waxay ku soo gashay dharkii qalinjabinta then sawirkiiba waxay suratay meel bay suratay gurigeeda kamid ah maalin kasta
oo casharada iyo dhibaatada iyo culaysku ku badnaado sawirkaasay fiirinaysa. aakhirkii maalinkii dambe sidii bay heer ku gaartay oo ku qalin jabisay 7 sano. dhalinyarta maanta waxaan leeyahay waxaa barateen tiktok oo 2 daqiiqo wax lagu daawado ama 1 daqiiqo. dhalinyaro dulqaad yeesha oo barta inaad ka faa'iidaysataan fursadaha nololeed aa haysataan. qaatana waanada dadka idin jecel oo ay ka mid yihiin Aamino iyo Yaasmiin iyo dadka kale oo idinku jira aaladahan oo idinka baryaaya inaad wax noqotaan. Abaayo aad baa u mahadsantihiin. Over to you. waa mahadsan tahay. nasiibka ardayda Soomaaliyeed aad u fiican yahay. macallimad dugsi sare Nawaal Shariif oo nagu soo kordha caawo waa arkaysaan. ilaahay siduu idin jecel yahay malaa waxay ilaahay yani wadanka waqti badan mugdi ku jiray. waxaa laga yaabaa inaan noqono dadkii bilaabi lahaa iftiinkii muxuu ahaa ubadka Soomaaliyeed, because haddii ay dadkii dhalinyarada la maalgeliyo muxuu ahaa noloshu way isbedelaysaa. nolosha hadday isbedeshaan dalku isbedelayaa. kulligeen waxaan wada rabnaa dalkeenu isbedelo, dhibkana laga wada baxo. muhanadaa kusoo dhaweynaa. habaryar muhanad soo dhawow. bismillahi raxmaani raxiim. waa li maqlayaa filaya. waa ku maqalnaa habaryar. bismillahi raxmaani raxiim. dhammaantiin habeer waa ku salaamaa. aamina asxaabta kale caawan nala joogta oo barnaamij kasoo qayb gashay, Nawaal, dhammaantiin waxa waaye masha Allah. aad u mahadsantihiin runtii. dhalinyarta Soomaaliyeed barnaamij noocaana waa u baahan yihiin. taasna waxayna tusinaysaa in aan aragno runtii inuu isbedel weyn soo socdo. isbedelkaasna waxaa lagu ogaan karaa dadkeena hadda waxay qabtaan. dadkeena tiktok markii laiskugu imaado barnaamijyo noocan kale ma jirin, laakiin aniga markaan wiilka Nigerianka u tago ama aan rabo inaan xog ka raadiyo qof barnaamijka iiga horeeyey, fursadahan dhiirigelintan ka hadlaya ma heli jirin. marka waxaa ku khasbanaan jiray inaan u tago Nigerian iyo Kenyan inaan u tago oo barnaamijkoodii ka qayb galo oo barnaamijkoodii dhageysto. marka aniga waa isweydiin jiray, waxaan dhihi jiray maxaa naga khaldan haddii anaga aan nahnay dhalinyarta Soomaaliyeed, xagee wax ka khaldan yihiin. dadkan cilmiga faa'iideysanayaan, waa isku imaanayaan, fursadiyaa la sheer gareynaa, kii kale uu caawinaya, xog uu la sheer gareynaya. ugu yaraan waxa ugu yaro qof kale la sheer gareeyo waa information waaye. markaasuu wuxuu sameynaya inuu dabagalo, wixii raadiyo, fursadii dadaalo. anaga laakiin ma lihin. marka waa isweydiin jiray su-aashaas runtii dhowr sano waa igu soo laalaaban jirta. waxaan dhihi jiray anaga dadka maxayna dheer yihiin. anaga sababta keentay inaan intaan qol tagno waxa waaye barnaamijyo kale oo qabiil aan qayb ka noqono, barnaamijyo kale faa'iido u leeyahay dhalinyartii aan qayb ka noqono. maxaa keenaya? waxaa kaaga sii daran, waxaa laga yaabaa livekaas inay 20,000 daawanayaan aa dhici karta, haddana wax faa'iido aan lagu helin oo dhalinyarta usoo kordhaya aan lagu helin, fursadooda wax ka bedelaysa aan lagu helin. marka runtii aadaa ugu faraxsanahay maami Yaasmiin, waxa waaye habeer Aamina, dhammaantiin inaa barnaamijkan runtii wax waa bilow fiican waaye. waxaan rajeynayaa inaa sii wadaan oo su-aasheedii dhowr sano ka hor maskaxdii ka dhex guuxaysay inaa hadda jawaabteeda helay aa moodeysa. marka maasha Allah, isbedelaa soo socda. laakiin anaga dhalinyar ahaan maxaa nala gudboon? dhalinyar ahaan anaga waxaa nala gudboon dadaal inaan sameyno. dhibaatadana haysta waxa waaye haddaa Soomaali nahnay waxaa jecelnahay wixii shortcut inaan ku gaarno. hal maraa rabnaa inaan wixii aan gaarno oo meeshii haddaan rabno scholarship, waxaan rabnaa beri inaan scholarshipkii ku guuleysano. waxaan rabnaa haddii qofkan natiijo hore u xaqiijiyey, waxaan rabnaa inaan isla markii helno. suurtagal maaha taas. waxaa la rabaa adiga qofkan aa arkaysa guushiisa, hadduu aqbalaad helay, haddii uu scholarship holder yahay, yacni habeeno badan oo soo jeedaa ka horeysa, maalmo badan dadaal badan soo bixiya ka horeysa, imtixaano badan oo ku fil karo waa ka horeysa. ma aha wax hal mar uu gaaray ma ahayn. marka
dhibaatada ugu weyn haddana haysata waxa waaye waa shortcut-ka waaye oo dhalinyarta Soomaaliyeed codkay hadda maqlaaya aan maaragta uga digayo inay iska ilaaliyaan shortcut inay wax ku raadiyaan sababtoo ah hadafkaadiina ma gaari karto. Waxaa la yidhi Soomaalida waxay ku mamaahan geed orod lagu koro orodaa looga soo degaa hal maraa dhulkii kusoo dhacaysa. Marka sidee ku xalin karnaa marka shortcut-kaas? Waxaa lagaa rabaa marka anaga badanaa xoog waxa saarnaa kind of tahriiba xoog saarnaa badanaa. Hebelo waa inta ka dhacay, heblaaya inta ka dhacday. Aad barnaamijyada Soomaalida aad u yaqaanaan. Meesha looga hadlaayana waa buuxiyaan. Marka waxaan rabnaa maankeeni intaan bedelno aan u soo daadegno sidee dadka kale wax ula qaybsan karnaa anagoo isticmaalayna qalinkeena. Sanadahan waa arkaysan waxaa soo badanaya wiil Soomaaliyeed, gabar Soomaaliyeed oo waxa waaye fursad heshay ama shaqo ha ku hesho ama waxa waaye ha ku hesho scholarship aa soo badanaysa. Taas rajo fiican waaye. Marka waxaan laga rabaa inaan aamino in qalinkeena aan ku dagaalami karno oo qalinkaas meel kasta aan ku gaari karno. Waa sax caqabado badanaa jira, duruufo badanaa jira, laakiin waa laga gudbi karaa haddii la dadaalo. Marka taas waxaa ku xalin karnaa ardayga Soomaaliyeed inuu vision yeesho oo dhaho aniga maxaan rabaa inaan gaaro sanadka soo socdo, 3 sano soo socdo iyo 5 sano soo socdo maxaan rabaa inaan xaqiijiyo. Waxaan si gaar rabaa inaan u xuso waxaa jirta gabar oo kasoo jeeda Nigeria. Gabadhaas iyo wiil ay asxaab yihiin oo classmate-kood ahaayeen iyo gabar walaasheeda 3 ahaayeen. First time-kii ugu horeysay waxay isku dayeen scholarship. Tan scholarship-kii waxaa helay wiilkii helay. Gabadhii kale scholarship-kaas inay hesho waxay ku qaadatay after 5 years. Ay ku qaadatay scholarship-kaas inay hesho. Maxay sameysay meel ma iska fadhin. Profile-keedii dhisaysa. In imtixaamaadka looga baahnaa soo gasho, profile-keedii dhisto, intaas ku mashquulsaneed. Marka anaga maanta haddii dib noo la soo laabto, qofka la dhaho maanta 5 sano halkaa fariiso ama sanad xaggaa fariiso, dhis profile-kaada dhis anaga Soomaali ahaan waa nagu culusta. Oo waxaan rabnaa inaan waxa waaye hadda wixii inaan gaaraa rabaa micnaha. So dabeecadda Soomaali ahaan waa leenahay. Ma suurtagelayso hadda dhaho qofkii halkaa sanad fariiso isdiyaari wuxuu ku leeyahay waqtiga iga tagay. Waqtiga waa la ogyahay waa soconayaa oo ma istaagaya laakiin waqtiga waxaa la rabaa inaa wax faa'iido leh ku qabato. Marka waxaa lagaa rabaa vision inaad leedahay oo aan soo yareyno sanadkana ku jirtaa waxaa rabtaa inaan scholarship ku guuleysto. Sanadkan scholarship horta muxuu iga baahan yahay? So qofka scholarship ku guuleysanaya arkaysa waa qof profile-kiisa dhisan yahay waaye. Qof la iska aqbala maaha interview kalaya, imtixaamaad u kalaya, intaasoo arday oo waxa waaye maaragta laga soo dhex dooranayo. Marka sanadkaas maxaa rabtaa inaa xaqiijiso? Sanadkaas imtixaamaadka IELTS exam-kiisa soo kal, TOEFL-kiisa soo kal, profile-kaada dhis, luqadaada dhis, CV-gaada dhis oo volunteer hadaa xitaa shaqo aan caadi haynin volunteer job soo samey. Profile-kaada adoo dhisan after 1 year scholarship-yadii marka isku day. Marka waxaa taas kuu soo baxaysa inaa hesho aqbalaadii aad rabtay ama heerka aad rabtay inaad ka gaarto. Scholarship-yada badanaa ani markaa fiiriyey dadka badanaa ku guuleystay waxay ka sameeyeen hal dabeecad ka sameeyeen. Waa dad diyaarsan in ahaayeen horey oo qofkii diyaarsanaa mar hore profile-kiisa dhisnaa. Tanna waxaa fududaanaysa markaas inuu scholarship-kii markii la arko potential-kiisa iyo waxyaabuhu ku fiican yahay xirfadiisa iyo in hore laga qaato dhacda badanaa. Marka runtii waxaa u baahanahay marka in aan degsano ahdaaf cadcad aan rabno inaan gaarno oo marka hore diyaar garowno. Waxaan rabaa halkaas sheekeer inaan kusoo dhex daro. Waxaa jira wiil oo si fiicanna waa loo yaqaanaa umaleynaa Dr. Cabdixamiid la dhahaa. Waa reer Mudug waaye. So qisadiisa waxa waaye waa kaalkacyo to Oxford. Wiilkaas masha Allah nin wuxuu ahaa horta soo jabhadeeyay profile-kiisa dhisan laakiin qisadiisa markuu ka waramayo tababar waxaa jirta uu u tagay UK
dana iskooladan Land of Hygiene oo jaamacadaas jirta I think college tahay wuu tagay kadibna wuxuu fiiriyay marka profileka meesha waxa ku qornaa rankii jaamacadaas ay u kala sareeyaan saas intuu u fiiriyay wuxuu yidhi wuxuu arkay marka in jaamacadaas ay ahayn rank 1 inayn UK ka ahayn uu arkay oo Oxford ay tahay saas u fiiriyay wuxuu yidhi niyow wax waaye maxaa haddaa wax isku daysa meelaha hoose maxaa iskugu daysaa meel kore fiiri soo laabtay dana wuxuu sameeyay markaas inuu profilkiisii iyo xirfadihiisii markaas dhiso barnaamij waxaa jiray uu codsaday oo waxa waaye oo shaqo ee hybrid ah uu codsaday oo bixinaysa markaas Oxford oo scholarship ah maya caadi uu bixinaysa scholarship ma ahayn laakiin barnaamijka caadi waa lacaga lagu dhiganaya intaasoo pound oo $1,000 lagu dhiganaya marka interview markii uu codsaday oo diray interview loo soo diray waxa la yiri interview imo dan interview marka laga yeeshay waxa la yiri niyow profilekaada waa dhisan yahay sidee rabtaa marka inaan kuu siino admissionka haddaa ku siinana yaa kaa bixinaya intaasoo £1,000 adoo Soomaaliya ka imaaday yaa kaa bixinaya la dhahay markaas wuxuu yidhi waa imaanaysa inta hartay laakiin isii idinka scholarship admissionka isiiya danna waxa waaye wixii markaas fan ku baxaya waa u tartamaya aqoonteeda xirfadeeda kula tartamaya laakiin the problemka waxa waaye admissionka inaa helo muhiimada admissionka sidii ku siiyeen waa ogtahay koorso oo qaali oo Oxford jaamacadaha ugu qaalisan ku jirta oo intaasoo kun oo pound ah la siiyay admissionkii kadibna wuxuu fiiriyay wuxuu la xiriiray academic programka oo qaabilsanaa barnaamijkaas uu email u diray wuxuu ku yidhi waxay la wadaagtaa fursadaha iyo scholarshipska furan laba marka scholarship la wadaagay oo loo diray marka gabadha u dirtay markaas waxay ku tiri extremely competitive way markaas shirkad extremely competitive ay dambeysay ereygaas aad u adeegsatay ay dambeysay horta ii soo dir wuu codsaday aakhir waa helay oo fankii iyo in safarkiisii la kharash gareeyo iyo waxbarashadii laga bixiyay noqotay so halgankaas iyo wuxuu kasoo bilaabay kaalkacayo ma ku imaanin hal habeen laakiin nin profilkiisa iyadoo burburkii iyo xilligaas dagaaladii lagu jiro uu dhiso profilkiisii iyo xirfadiisii inuu dhiso marka maanta waa ka nasiib badanahan xilli uu sheegaya haddaa aragto waa xilliga dagaaladii aad ku dhacayeen meesha ku shaqeynaya dagaalada aad kugu badnaayeen laakiin masha Allah waxa waaye maanta anaga internetkii iyo safetygii waxaa moodaa in maaragta waqti badan ka bacdi wax badan isbedel badan uu jiro nasiibkaasaa maanta u yeelanay marka waxaa laga rabaa in ahdaaftaas oo cad yahay oo specific yahay oo cad oo qeexan sidoo kale yahay markaas wax la gaari karo so haddaad dhahdo aad degsid waxaadan gaari karaynin so waxa way adagteena hore u socoto wixiina niyadjaba ka qaaday marka sidoo kale waa inuu la xiriiraa hadafkaada adiga marka haddaad soo qalin jibisay oo aad rabto inaad xaqiijiso markaas scholarshipka codsanayso ahdaaftaada iyo yoolalkaada waa inuu la xiriiraa oo aad caddeyn kartaa isaga xitaa waa lagu weydiinaya inaad ku caddeyn karto scholarshipkan haddii aad hesho sidee marka ahdaaftaada iyo yoolalkaada iyo mustaqbalkaada careerkaada xiriir ula leeyahay waa inuu marka wixii wax saa iskugu xiran uu noqdaa sidoo kale waqti cayiman leeyahay haddii marka aad samayso aad dhahdo ani waxaan rabaa inaan gaaro sanadkan luuqadihii aan iska dhiso profilekeyga soo dhiso xirfadaheyga soo dhiso sanadkaasaan rabaa inaan ku gaaro so waqti cayiman waaye marka wixii waqti cayiman kuu leeyahay dhiirigelina u haysta markaas inaad gaari karto marka waxa ugu weyn oo aan rabo inaan xuso waxa waaye sidee marka 30 minute ama 1 hour maalintii aad qorsheysay noloshaada wax weyn ugu bedeli kartaa oo halkaas saac aad joogteysay sidee u bedeli kartaa yacni mustaqbalkaadii dhan halkaas saac aad ku bixisay luuqad ama ha noqdo profilekaada inaad dhisto ama shaqo volunteer aad soo qabato ha noqoto sidee u bedeli kartaa scholarshipkii marka hadda tusaale aad codsato uu furmo badanaa waxay leeyihiin wax la yidhaha eligibility leeyihiin ama shuruudo gaaray leeyihiin oo lagu leeyahay isheeg examskaas waa inaa haysataa kan waa inaa haysataa
experiencekaas tusaale jifininka ka mid ah oo waxaa lagu leeyahay waa inaad 2800 oo saacadood waa inaad soo shaqaysay oo khibrad shaqo leedahay at least xitaa volunteer waa inaad soo samaysay marka scholarshipka hadda farmaa ogaaday dadkii ayaa kasoo aragtay ama waa soo akhrisay xareeya istiri shuruudihii ma buuxinaysid marka taas fursadii waa ku dhaafee marka fursadda guusha waxaa la yidhi waa adoo u diyaarsan fursaddii iyo fursaddii waa inay markaas hal mar kulmaan marka fursadda automatic waa imaanaysaa fursad waa imaanay laakiin adi diyaar muu tahay haddaad diyaar u tahay fursad waa imaanay oo soo maray marka waxaan rabaa inaan dhalinyartaas ku dhiirigeliyo oo aan dhaho sameeya waxa waaye qorshooyin yaryar oo maalin kasta aad qabanaysaan si maaragta guushaas loo gaaro hadda dhalinyar qaar aa kula soo xiriiraa waxay ku dhahayaan scholarshipkaas aan rabnaa inaan xareysano markaan dib u fiiriso wuxuu ku leeyahay ani kan ma haysto kan ma haysto marka sidee adii rabtaa marka inaa uga qayb qaadato tartankaas oo intaas oo arday ku tartamayaan kala duwan sidee rabtaa marka inaa qayb uga noqoto ma dhamaystirnid profilekaad ma dhamaystirna marka badanaa waxaan kula taliyaa waxaan dhahaa waxaa samaysaan horta scholarshipka intaan la gaarin profilekaada dhis oo wixii adiga kaa maqnaa is leedahay ama luuqad ha noqoto ama xirfad experience ha noqoto soo buuxi horta shuruudahaas danna markaas scholarshipka u imow si maaragta waqti kaaga khasaarin aadna markaas dhiirigelin iyo maaragta energy cusub aa ugu hesho taas waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo stay motivated inaad noqoto oo caqabado badana iska jira mararka qaar ardayga markuu qofka arday yahay caqabadihiisa iska badan marka mararka qaar waxaa la kulmee in applicationkaada lasoo diido oo reject lasoo kulanto ka waran adoo bishii lagu soo diray yacni 20 rejection wax ka badan bil keliya lagu soo diray oo axareysay lagu soo diray micnaha waxay ku tusinayee dadaalkaada inaa hore u socoto anaga laakiin waa nagu yar yihiin laakiin inaad 20 applicationta bil gudaheed dirto rejection lagu soo diro oo after 20 kabacdi lagu aqbalo waxay ku tusinayee inaa isbedel meel dheer ka imaatay marka aan sameyno marka dhiirigelin hal application hadii lagu soo diido ama wax yar caqabad la kulantahay isdhiibin tartan ilaa meesha ugu dambeysa tartan danna wax ka baro marka waxaan rabaa intaas inaan kusoo gabagabeeyo waxaan ku celinaya dib ugu celinayaa maamo Yasmiin ها وما صنت هبر معان محاها مهند diidmadii iyo joornigaas dheer intaan la korin waxa caaw usoo qaatayba qodobkan wuxuu ahaa yacni ma dhowin annaga ma dhowin ardaydeena ma dhowa because waxa waaye sanado badan waxay nooga qasaareen information la'aan iyo platforms noocan oo kale ah oo dadka Soomaalida isku caawiyaan oo adigoo kala xataa nin dhalinyaro informationkii oo wadadan maro oo guuleystay iyo dad mentors oo anagoo kale ah waalidiina inay ardayda hagaan marka waxaan rabaa inaan mar labaad ku celiyo qof allaal qofkii macallin ah ama mentor noqonayo oo nagala soo qayb gala ama dhalinyaro ah oo khibrad leh barnaamijkan habeenadan qabanayno tala bixin uu nagala soo qayb gali karaa wax barnaamijkan qof gaar ah uu leeyahay ma aha waa inaan baranaa waxaan wada leenahay cohesion ayay dadka adduunyada ku hormareen wax la wada leeyahay platform lacag lagu qaato ma aha project kuma qaadano ardaydeennaasan hooyanimo anaga ku caawinaa anigii aamino gabar macalimada caawa nooti maasha allah intii kaloo mentors u noqon karta ardaydana tala ahaan way noogala soo qayb geli karaan waa meel furan oo aan lagaa lahayn midda labaad ardayda Soomaaliyeed noo share gareeya noona taabta muxuu ahaa screenka waxaan rabaa ardayda Soomaaliyeed inay tahay maanta maalin ay ka fiican tahay ma jirto oo guuleysan leed ama aad bilaabi leed safarkaaga guusha sababtu waxay tahay waxaa haystaa qof iyo dad dhalinyaro ah oo ku fahmayo iyo hooyooyin iyo adeerayaal ama abtiyaal kale haddaan helno ay nagu soo biiraan ku hagaayo ku mentorship aa la dhahaa oo ku dhahay I believe in you waa samayn kartaa markaa rabti anaa ila hadli kartaa saacadday noqoto extra mile waxaan isku dayaynaa inaan macallimiin helno macallimiinta laakiin ma cover garayn karno ardaydeena aaday u tiro badan yihiin budgetna uma hayno aan ku cover garayno lacagta lagu baranayo luuqadda laakiin arday badan oo dadaashay oo luuqadii barato iskood isku baray ama YouTube ka bartaan ama si kale ha u bartaan oo ku sugan
soomaalida waa aragnay ardayda soomaalida meel kastay joogaan arday tafa aragna oo iskooda super marka macnaheedu waxa hadday kaa go'an tahay waa samayn kartaa if there is a will there is a will ee dhahan cadaankan haddaa rajo leedahay yani waa helaysaa taayirkii ku rogi lahaa oo horumarkaa ku gaarsiin lahaa waxaan kaloo u sheegaynaa inkastoo annaga aan halkan ku haysan dad badan oo wax riis gareeyaa jiro ardadan hayno aniga ma jecli wax lacag aniga aaminaba weligeen lacag gacanta kuma qaban funding ma riis gareynin lacagama ururino laakiin waxaan ka codsanaa dadka qurba joogta ah ama ganacsatada haddayna maqlaayaan in ardayda soomaaliyeed ay fursad siiyaan oo ardayga dadaalayo especially ardayda bajularka haysto masterka raadinaya scholarshipyada way helayaan imtixaanaadka tefolka iyo duwalingaha in laga bixiyo ama tababaro luuqadda ah oo ardayga iskiis suuraadsada ardayda dadaalaysa annaga xataa ardayda dadaalaysa waa kala saarnaa yacni waxaan premia ahaan ama awards ahaan waxaan dhinaa ardaygan koorsada kama maqnaado punctual waaye yacni waqtigu ilaaliyaa informationku la socdaa maalintuu noo yimid basaboor ma haysan maalintuu noo yimid waraaqihiisa script ma ahayn oo ama dugsiga sare ama jaamacadda maalintuu noo yimid ma uusan haysan moi maalintuu noo yimid ma uusan garanayn motivation letter sida loo qoro maalintuu noo yimid ma uusan garanayn sida cv loo qorto waxaasoo dhan aan ku mentor garaynay marka fail aa suubsanaysaa caawo wuxuu ahaa titlekeena why success is a number of game maxaa nambaradaada haddaa yani isqorshaysid 1 iyo 2 iyo 3 priority kala suubsatid uu qofka u guulaystaa in badanna muhanad waa ku celceliyey dadka naftooda timeka iyo waqtiga geliyey oo ishabeeyey inay guulaysan karaan because halkaas waxaa lagu dhiga horumar aad u rabtid horumarkaas waxaa kaaga xiran shuruud qofaa daf soo dhaha intuu iga soo booda wuxuu dhaha scholarship aan rabaa detailskan u diraya shuruudihian u diraa waxaasoo waraaqad diyaarso scholarshipkaasaa furan levelkaas daata wuxuu leeyahay habar baasboor ma haysto maxaan ka qaban karaa ani baasboor haddaad haysan see rabtaa inaa u baxdid oo dhoof u aadid marka hore dhaqaalaha inuu xun yahayna waa ogahay yani waa fahansanahay in waddanku aad u burbursan yahay oo dhaqaalihii uu aad u liito oo waalidiinta ay afford garayn karin in cilmo baasboor loo helo in cunuga laga bixiyo school private ah waxaas oo dhan waa ogahay laakiin waqtiga rabta baa kugu qaadato qonyar socod qodaximo muddo inta ganacsatada ah ama dadka ururiyo fundraisingka ama haddaa qof diaspora jooga tahay fadlan arday mustaqbal rabo ka tallaabi lacagta imtixaanka intaasay taa caawimaad uga baahannahay annaga lacag ha noo dhiibin ardayga ugu firfircoon meel alla meeshu jooga qabi xataa maba kala garanaynaba ardaydeedana way yaqaaniin inaan kala garanayn ayna goonin u kala xulin oo si feer ah ardayga yani lagu abaalmarinaa dadaalkiisa waa ku siinaynaa magaciisa imtixaankaa ka bixina intaas hadaa nagu caawin karto waa nagu caawin kartaa haddaa extra mile wax qaban kartid arday aa iskuulka dhiibaysaa marka iltskana waddanka waa laga dagaalaa ku socdo oo 30 sannadood waaba loo diiday oo kenya ilaa etoobiya loo aadaa marka annaga tabarteena waa inaan isku tashanaa waa inaan iskaalmaynaa waa inaan tefolka iyo duwalingaha qaadanaa jaamacadaha tefolkana iyo duwalingahana aan focus ka saarno marka waxaa laga rabaa ardaydeena dib u dhacay inay qorsheeyaan sanad 2 sano sida adiga isku soo dhammaystiri lahayd waxyaabaha lagaaga baahan yahay oo horumarkaa ku xiran macnaha maaha inaan ka hadlayno scholarship keliya aaminan haddaa hadalkaasiiti waa soo qaaday in qofka uu iska ogaado uu ku tahjuudo waxbarasho impact ku samaynayso suuqa waxbarashada iyo kareerayaasha oo shaqada waa isbedeleen fursado waxaa jira dadkii oo jaamacadaha aan soo dhiganin ee hadda kaga hormari karaan qof PhD haysto taasna markasta waxay kusoo noqonaya luuqadda ingiriiska inaad master garayso luuqadda haddaa master garayso coursiere waxay bixisaa iyada naftirkeeda funding ay bixisaa oo dadka dunida wadamada soo koraa dhalinyarada waxay siisaa koorsooyinkaas waxaa ku baran kartaa oo haddeerta highly paid jobs ah oo gurigaaga adoo ka shaqeeya kambaniyada Microsoft Google metahanita oo Facebook iskala u shaqeyn kartaa oo onlineka iyo computerada looga shaqeeyaa data analytics adoo barto cyber security adoo barto ama self employment aan noqonayn machine learning AI hadhiin software engineer hadhiin muxuu ahaa dev upka hadhiin waxaasito dhan ay jiraan waxay kugu qaadanaysaa sanad iyo 8 bilood ay kugu qaadanaysaa adi 18 months sanad iyo 8 bilood ama sanad iyo 6 bilood waxaa ku noqon kartaa engineer technology ah qayb allaal qaybta adiga jeceshahay ah marka maanta ma aha bajular kaliya inay kugu xiranta xataa si kastaba ha noqotay ku soo gafto waxbarashadii
oo reerkiina dhaqaalaha ama ha ka xumaada ama waalidkii ha kaa dhintaan ama duruufo kale ha ku haystaan ama soo guursa adoo yar weli fursad aa haysataa weli fursad aa haysataa fursadda gurigaaga adoo joogo aa computerkaa ka baran kartaa courseera lacagta kaa bixinayso maxaa rabtaa inaad qabad shaqooyinkaasi xitaa waa highly paid job horumar waa ka gaaraysaa scholarshipkana waa isu diyaarin kartaa laakiin waxaa isugu diyaarin kartaa scholarshipka inaad 10 tallaabo oo ardayga Soomaaliga u baahan yahay inuu sharciyadiisa ku diyaarsado amaanadooda idin sameey yoolka koowaad wuxuu noqonayaa inaad codsiyada ururso ah fayl u samaysato wadamada aniga TEFL ama Duolingo ugu aqbalay aniga Sweden maan jeclahay Netherlands maan jeclahay mise UK aan jeclahay hadda Mohamed oo kale Bravo wuxuu la socdaa high rank jaamacadaha arday badan 90% lama socdaan high rank waxa waa xiraba inay istuuraan ay galaan yani dibadda inay soo galaan kaliya rabaan madaxdii hore iyo nin kastoo Soomaaliya magac ku lahaa reerku doona ha u dhasho oo magac iyo taariikh ka tagay waxay ahaayeen niman ku baxay Bors Studio oo Talyaaniga la dhihi jiray deeq waxbarasho ama scholarships dadka waqooyiga Soomaaliya degan Ingiriiska siin jiray ilaa high waxay uga soo baxeen jaamacado sarsare koonfurtan waxaa loo qaadi jiray Ruushka iyo Talyaaniga dad badan oo magacyo sameeyay waxay ku baxeen ayagoo sharaf leh oo waliba markaas dadka familiyadeena yani maalin sanad walba way siilitaan anaga markaas soo koreen faynuus wax ku aqrisan jirnay aabe markuu soo koraay noloshu way ka sii liidatay ma technology taal platform kana waa platform gacanta lagu qabanayo lagu dhageysanayo lagana caawinayo waa maasantii intaas si taa uga baxa qofka kale wax ku daraayo qorshe dadaal time gelin naftaada soo gaar meesha aad ka duuli karto waxaan ku soo dhaweynayaa never give up never give up ma joogtaa hello okay Mr Xaashi wax ma ku darsanaysaa laba eri baan ku darayaa hadal badan ma rabo inaan idhaahdo marka koowaad aad baan kaaga mahadcelinayaa waa first time-ka aan qolkaaga imaado fursad weynna way tahay wax badan baan ka faa'iiday intaan hadda joogay waama horta anigu dadka scholarshipyada aadka isugu daya baan ahay scholarshipyo fara badan waa isku dayay laakiin still waxaa moodaa in wax iska jirjiraan aan weli ma helin scholarship hadda markii ugu dambeysay wax kasta formkii waa wada buuxiyaa laakiin waxaanan samayn horta marka master baan diyaariyey waxaanan samayn maaragtay shahaado ah English language-ka ah laakiin waxaa jirtay jaamacadaha aan wax ka soo bartay waxay ahaayeen jaamacadaha Afrikada ah luqadda Englishka si fiican uga hadlaa we have no problem from that then waxaan ku xiran jiray jaamacadaha warqad ay jaamacaddu soo siisay oo ah English language inaan wax ku soo bartay oo u dhiganta shahaadooyinka caadiga Englishka laga qaato marka ma aqaan jaamacado fara badan way ii diideen inaan fursadaas oo kale helo waxaan u maleynayaa waxaana fursad badan qofku markuu batch haysto oo master xireynayo baa ka fursad badan qofku markuu master haysto oo PhD ama wax kale uu raadinayo marka waa fursad fiican maaragtay waxaana aad hadda u fudud dhalinyarta badan ay xireystaan jaamacadaha Talyaaniga ku yaala oo aan hadda san xogta ku hayo admissionkoodu ama ay furmayso bishan December soo socota dhamaadka sanadka xilliyada la xiriya waa xilliyadaas dhamaadka ilaa January iyo June ilaa iyo June July meelahaas oo qofka waxa loo soo jawaabaa August ilaa September marka waa isku dayday jaamacado fara badan laakiin waxaan u maleynayaa weli chance-kii ma iman hadda fursado fara badan waxay ka jiraan iyada laftirkooda Spain Portugal oo jaamacado fara badan fursado dad ay siiyaan aan arkay waxaan ka faa'iideysanayaa anigu dadka maaragtay experience-ka faraha badan leh oo maaragtay jooga oo fursadaha helay
oo maaragtay xogta intaan aniga hayo in ka badan haya oo dadka usoo gudbinaya. Marka aniga xogtaydu waa iska intaa maadaama wax badan aanan dadka usoo gudbin karayn. Just waxaan rabay chanska inaan siiyo dad kale oo iga khibrada badan. Waan salaamaya. waa mahadsan tahay maxaa shavinin isku dayda shavinin ee sanadkan sanad walba kasoo qaada Soomaali fursadahana siisa Horta sanadkan iskuma dayin laakiin way jirtay sanado hore aan isku dayay. Marka sanadka kan adigu waxaan iskaga mashquulay Soomaaliya aan kusoo noqday. Xilli waxay kusoo beegantay shaqooyin fara badan aan hayay baasaboorkan oo iga dhacay. Marka chanska ii saaciiday waa sanadkan inaan sameeyo hadda bisha tan oo hadda baan baasaboorka cusboonaysiinaya. Marka chanska already way dhaafay oo waxaa la xirayaa bisha 10aad October baa la xirayaa. waa October xirantaa October baa la xirayaa. Marka ma xireen hadda sanadkan. I hope next year haddaanan chance kale helin waxaan isleeyahay xiray laakiin hadda haddaan cusboonayso waxaan isleeyahay waxaan isku daydaa kan Italy iyo maaragtay mid Spain ah oo chanskoodu aad uga fara badan yahay because of inta badan jaamacaduhu hadday xitaa ku siiyaan admissionka waxa adag viisaha wadanka oo inta badan UK viisaha wadanku inuu bixiyo xogaa way ku adadkiyaan dadka way ku soo tahriib iyo waxaas bay moodaan moogta. Laakiin wadamadan kale Talyaaniga iyo Spain simple way xogaa waxaa moodaa inay ka yar fudud yihiin UK. insha Allah waa guuleysanaysaa waa ku duceynaynaa waa mahadsan waxaan tahay rabaa Maxamed waxaan rabaa talo yar inaan ku darsado wiilkaas walaalkii Masar Xaashi hadda i maqlayso saaxiib horta waxaan maleynayaa inaad PhD xareynaysaa saasa hadalkaada u fahmay oo master tahay hadda. Masar waa diyaariyey laakiin hadda laftirkeeda waxaan diyaariyaa course like ACCA oo waxaan maleynayaa maamadu inay garanayso Ingiriiska laga leeyahay Okay. baan diyaariyaa oo maaragtay kursooyin fara badan waa sameeyey hadda laftirkeeda waa wadaa oo maaragtay Yurub oo dhan laga aqoonsan yahay oo professional courses baa la dhahaa wadamo badan baa laga aqoonsan yahay kaasoo kale hadda waa wadaa laakiin waxaan xiriyay hadda waa joojiyey PhD baan awal xirin jiray laakiin waxaa ka horeeya PhD qofku inuu xireeyo sidan meelaha kan oo kale ma aha Afrikada tan ama meelahan qofku PhD gu iska diyaarin karaa laakiin Yurubta waxaa qofka la isweydiiyo qofku inuu research fara badan sameeyey buu qoray khibrad fara badan oo haysto waxyaabahaas aad la isugu xujeeyaa marka masterka xogaa simple ah. Xaashiyow waa ku fahmay waxaan rabaa kulley wixii aniga iga aadan tala ahaan inaan kuu darsado. Badanaa waxaa la lahaa hadda markii category fiirino waxbarashada hadda arday secondary waxaa ka jaanis badan qof markaas oo bachelor raadinayo hadda secondary ka baxay oo bachelor hadduu raadinayo waxaa kasii jaanis badan ardayga masterta marka scholarship raadinayo oo jaamacaddii ka baxay. Mastertana waxaa la dhahaa waxaa kasii jaanis badan ardayga markuu master dhameeyo oo PhD raadinayo kasii jaanis badan badanaa PhD candidate waxay u badan yihiin fully funded u badan yihiin runtiina waxa waaye profilekoodana aad u xoogan yahay. Waxaa jira I think profilekaas in lagu qiimeeyo research skillkaaga oo inaad dissertation badan ama publish aad samaysay cilmi baarisyo ah. Sidoo kale IELTS exam inkastoo hadda examka kaas aad diyaarinayso laakiin IELTS exam aad soo qaadato oo weliba qaybta writing aaday usii fiiriyaan in writingkaada uu xoogan yahay oo waxay rabaan qof writing skillskiisa aad u sareeyo jaanis badan ay ku siinaya in PhD kusoo aqbalaan. Sidoo kale imtixaankan loo yaqaano GRE-ga inaad diyaariso sidoo kale taas waxay intaasoo la isku daray waxay kaa caawinee inaa markaas yacni profilekaadii uu aad u xooganaado jaaniskay ku aqbalayaanna maadaama very competitive tahay aad u sareynayo. Marka waxaa jirta hadda waagii hore mise hadda waxaa jirta dhalinyaro Soomaaliyeed oo jaamacadaha hadda dalka ka mid ah publish inay sameeyaan still haddana wax waaye bachelor ay ku jiraan way publish karayaan research badan ay publish karayaan. The more you publish the more waxa waaye runtii
profilekaada aad u xoognaanayo. Marka taasna fiiriya ku dhihi lahayo dib ugu laabo inaa weeraan xitaa publish sameyso oo iyagaa kusoo raadsanaya markaasba. Marka runtii waxaan u maleynayaa inaad ka jaanis badan tahay dad badan haddaa PhD raadinayso. Waa nasiib waa kuu rajeynaa, laakiin intaas anigu kugu darsan lahaa. waayo saaxiib waa talo wanaagsan. jaamacadaha oo isbaanishka iyo waxay ku leeyihin Italy magacyadooda noo sheega. Muhammad ma taqaanaa kuwaas oo uu sheega xaashi maama waa lagu soo celceliyey. waxaa leeyahay scholarshipska Italy isbaanishka aan rekomendaareysay oo u fudud Soomaalida noo sheeg magacyadooda haddaa taqaanid. jaamacadaha waxaan ku hayaa WhatsAppka jaamacado fara badan waxaa jira liila soo wadaagay hadda taleefona usoo dhacaa umaleynaha. hal daqiiqo waa idin fiirinaya WhatsAppkan ka hay waa mahadsan. haye aamini nawaal ku daris ka bacdi waxaan qaadaynaa su'aalo yar saacad camal waa ku jirnaa umaleynaa badanaa. nawaalna waxaan ka codsan lahaa inay mar kasta walaalay aad noo timaadid insha Allah. qof macallin okay aniga todobadii qodob aan ku soo celinayaa. ugu soo celi intaasaa caawa kaga baxayaa. habreerayaal dhalinyarada marka aad wax baranaysiin todobadan qodob waa ka badan karaan, laakiin ayaa muhiim ila ah inaad ka fikirtaan. waxbarashada sare ama jaamacadaha lama mid aha waxbarashada hoose dhexe lama mid ah. way ka sarreysaa waana waxbarasho muhiim ah. number 1 waxaa aad uga fikiraysiin isweydiin nafsadaada, iska baaraandeg ma kaa go'an tahay inaad wax barato sideedaba ma kaa go'an tahay isweydiin. lama rabo waxbarasho intaa bilowdo hadhowta aad haddana aadan dhex uga tegayso looma baahnaa. inaad waxbarasho sare aada ma kaa go'an tahay. number 2 waxaa waaye waxa aad baranayso inaad go'aan fiican ka qaadato. maxaa baranaysaa inta kubood lama rabo hadhow haddii fursad aa hesho wixii aad ku jahduuddo waa inaad waxaa barataa. marka maxaa kugu habboon oo baranaysaa. barashadaas aad baranaysid waxaa waalidkaa ku qancinaysid ma aha. haddii laakiin aniga aan ku dhalay oo aan dhakhtarnimo jeclaa dhakhtarnimadiina waqtigii ii saamixi waayey inaa adiga adoon dhakhtarnimo rabin oo injineernimo raba ama maxay ahaatoone computer science raba inaa aniga daraadday dhakhtarnimo u barata maa waayo hadhow ma wadaysid dhex baa uga soo tegaysaa. waa inaa marka ka baaraan degtaa wax baashankaaga ah qalbiyan aad jeceshahay adiga inaad barato. maxaa yeelay waxbarashada qasab ma gasho. waxbarashada sida qur-aanka oo qaala lahu tacaala markaan baranayno oo ay tahay inaan sida uu yahay u barano ma aha waxbarashada. number 3 waxaa waaye luqadda ingiriisiga ma iska dhistay. luqadda ingiriiska ma iska dhistay waayo luqadda ingiriiska waa waajib in aad taqaano. luqadaha kale luqadda ingiriiska lama mid aho. haddaa rabto waxbarasho sare hadda anagu waxbarashooyinkan idinkeeda kala hadlayno kuwii lacagta ahaa maaha waa kuwii oo tabarucaada waaye oo dowladuhu bixinayeen waaye iyadoo aan lagugu gumaysan oo nin siyaasi oona maaragtay jeebka kuu raxin inaa adiga codso karto. waa saas waa naga aksaaska aan macnaha aan idinla rabna idinka kaas waay. laakiin waa inaad luqadda ingiriiska iska dhistaa. number 4 ma iska xirtay daaqadaha ku mashquulin karaa. daaqado badan ayaa laga yaabaa inay ku mashquuliyaan. daaqadahaas ma iska soo wada xirtay. waa inaad xooga isku geyso sidaa wax u baran lahayd ooda hadhowti aadan uga bixi lahayn. marka ma iska xirtay waa number 4 ma iska xirtay daaqadaha ku mashquulin kara waxbarashada kaa mashquulin kara ma iska xirtay. lama rabo inta kubood waxaanaan ka fikiraa jaamacadan aada xaas haddaan wiil tahay xaasna waa noqonaa ilmo dhalowna waa bilaaba wax afaarayaal aan isgeli karin aa jiro. howlo aan isgeli karin oo hadhow aad kuu mashquulinayo aa jiro.
marka ma iska xirta daaqadahaas badan oo kugu furan oo ku mashquulin doona ma iska xirta number 5 waxaa waaye ma qaabayso qorsheynta waqtigaaga inaad qorshaysato ma qaabayso ma kaa go'an tahay saacadaas ilaa saacadaas aa wax baranaa waa jaamacad markii la dhiganayo waa ogtihiin waxaa lagu siinaa wiigii meeqa saacadood ayaa lagaa rabaa inaad waxbarasho kaliya ku bixiso waa laguu sii sheegaa 8 saaca lagaa rabaa 10 saaca lagaa rabaa 12 saaca wiigii lagaa rabaa waxbarasho kaliya qaaraa maxay 15 saac qaaraa ku dhaha 20 saac kuwa full time ka 20 ay ka bilowdaan marka waqtigaaga qorshe ma kuu leeyahay mase haddii axmed adigoo aadama haddii axmed ku yimaado kaala aanu banaanka soo wareegnay ku dhaco ama sinimada iyo raac waa iska dabagelay waa inaad qorshe leedahay qorshe inuu waqtigaaga kuu leeyahay waay saadaan waxbarashada uga habsaamin number 6 waxaa waaye dunidu waa geedi dunidu way socotaa waa geedi takhasuskaaga ma noqon doonaa mid kuu shaqayn doona 15 sano ilaa 20 sano oo hadda kadib ah waxa aad baran doontid oo kusoo takhasusaysid kasii fikir research sii samee waa sahlan tahay si lagu ogaado hadda waa aragteen shaqooyin badan robot iyo balaayaa bedeli doona shaqooyin kalena lama bedeli karo marka waa inaad og tahay 15 sano oo hadda dhiman waayo 5 sano markaad adigu 4 sano 5 sano markaad wax barato waa inaad 10 sano kuu hartaa 10kaas sano oo kuu haray waxaa shaqo ku heli karto oo jiray ma yihiin ya ma yihiin waa inaad ogaataa nambarka ugu dambeeya 7 waxaa waaye han yeelo aad hadaf yeelatida han yeelo aad hadaf yeelatida han la'aan hadaf ma yeelanaysid qofku inuu han ahaan hankiisu qofku waa inuu u gaarsiisan yahay waxaan uu baranayo iyo meeshaan sare oo uu hiigsanayo ilaahay nafta markaa hadduu kuu daayo oo aad han yeelato waxa waaye hadaf ayaad yeelanaysaa iyo han isla socda wixii baa ka miro dhalinaysaa alla subxaana wa tacaalana ha kugu anfaco intaasaa uga baxay Yasmin waa mahadsan tahay mahadsanid aamino haa xaashi ma soo heshay warkaa u sheegaysa dadkii soo codsaday commentiga usoo dhigay 3 jaamacadood yaa mahadsan tahay nawaal haddaad waxa ku daraysaa baa ku dar waxaa qaadanaa su'aalaha waa soo haye gabagabeynaya abaa yaasmina aada u mahadsan tahay aaminaa dhammaysay dhalinyaro waxa koowaad oo aad u baahan tihiin waa self discipline iyo dedication oo ka go-naansho ah waxaana kaloo idinkala talinayaa naftayda naftiinaba cabsida ilaahay iyo inaan naftiina idan daraagis baran dhalinyaro badan waayadan dambe si ay naftooda very active ay u noqdaan ayay waxay keeneen inay drugs bataan oo markaa isdhaho qofkii bal saa u excel garaysid waxbarashadan lagaa rabo iyo bal yare mid laysku mudo ama mid la cabo ama marka ogaada daroogadu waa waxyaabaha qofka naftiisa u diida oo marka dambe way ku maamulaysa ayadaa ku maamulanaysa marka insha allah halkan kusoo xirnaada isgacan qabta qofba qofka kalena ha gacan qabto ha lays caawiyo hana lays duceeyo yasmin abaa waa mahadsantahay intaas kusoo qoyo waa mahadsan tahay waxaa saaran injineer magaca kale ma ujeeda cabdi miyaa maxaa qabtaa su-aal maa qabtaa habar mise waxbaa ku dari lahayd haba su-aal baan qabay waxna waan ku dari lahaa horta ugu horeyn aad baad u mahadsantihiin sida aad ummadda Soomaaliyeed u caawinaysaan horta cadaanku waxay yiraahdaan adiguna sii gudbi ma ogtahay wanaaga in la sii gudbiyo waxaan rajaynaynaa anaguna inaan sii gudmi doono wanaaga laba su'aalood oo kaliya ku weydiin lahaa anigu waxaan bartay horta ardayda sanadka qalinjabisay baan ahaa waxaanan bartay telecommunication engineering jaamacadda Hargeysa shahaadadu waxay ii soo baxaysaa bisha 2 markaa scholarship-yaduna waxay furmayaan bisha 2 ka hor dawadigan imka qaar baa furanba markaa iyadoon shahaadada ii soo bixin ma sii xarin karaa oo shahaadada inta ka reebo inta kale ma ku sii xarin karaa waa su'aasha koobaad su'aasha labaad ee ku weydiin lahaa waxa weeyaan shaqo experience baa la isweydiiyaa ma ogti experience-ga la isweydiinaya maadaama aanan ku soo shaqayn fiilka aan dhigtay waxyaabo kale ka soo shaqeeyay baa jira waxaa ka mid ah
part time aan shaqayn jirayo gelinka jaamacadda bilaabay shaqada aan ka shaqayn jiray meel horado electronic waxa iibsa shaqo kale oo qabtay iyaduna waxay ahayd doorashadii dhawidee berigii dhawid lagu dooranayay madaxweyne Ciro jaamacadda chance inaan ka shaqeyno waan ka shaqeeyay ay marka ma igu filan tahay work experience-ga haddaan 2 warqadood oo noocaas soo qaato mise waxa lagu oranayaa wixii aad soo baratay waa inaad ku shaqeysaa intaas ma ku weydiin lahaa insha Allah iga soo jawaab su'aal kale saddexaad oo ku darsan lahaa inagoo raaliya su'aal kale saddexaad oo ku darsan lahaa ay su'aasha saddexaad waxa weeyaan horta English level-kaygan eegay oo si aan IELTS-ka u diyaariyo amba waxa u diyaariyo marka English level-kaygii waxaan eegayeen British Council-ka qayb uu leeyahay aad free ku tijaabin karto English level-kaygu wuxuu noqday B1 marka inta in lag bay ugu qaadan kartaa haddii ay muwaanado kale uu joogo oo uu galay imtixaanka isagoo IELTS-kaasi inta in lag bay ugu qaadan kartaa B1 ilaa C2 inaan ku gaaro si aan B2 ilaa C2 inaan ku gaaro si aan u diyaariyo in IELTS-ka u galo mahadsanidin wad mahadsantii adaan murid soo dhawo Muhammad hay Muhammad nooga faradhooban su'aalahani bismillahi raxmaani raxiim su'aalaha walaalkani weydiiyey injineer cabdirashiid su-aasha koowaad ma xareysan karaa anoo shahaadada weli qaadan scholarship-ka haa waa xareysan kartaa unless aa waxbarashadii kuu dhamaatay kadibna waxaa sameynaya inaa markaas jaamacadda testimony aa kasoo qaadato ama transcript-kaadii dhammaan dhibcahaadii inaad soo gudbiso aa lagaa rabaa marka haddii waxbarashada kuu dhamaatay inta shahaadada kuu soo baxayso dhib ma laha hadhowdii gadaalan kasoo upload gareyne waa xareyn karta taas iyada waa taas tan kale la xiriirta experience-ga horta scholarship-yada way kala duwan yihiin oo iyaga qofkay rabaan ama qofkay raadinayaan scholarship-ka hadda tusaale waxaan rabaa inaan 2 scholarship tusaale usoo kala qaato scholarship waxaa jira chevening-ka waxay rabaan yacni marka experience-ga laga hadlayo inay relevant la noqoto oo la xiriirto waxaa baratay waa inaa wax soo qabatay oo waxay rabaan shaqadaa qabanaysay aa ka shaqeynaysay inuu fiilkaaga macnaha la xiriiro oo saasay kaaga soo dalbanayaan marka scholarship-yada noocaas hadday ku dhahaan dalabkaas noocaas hadday kusoo hormariyaan ama requirements-kooda ku jirto waa ku khasban tahay inay marka experience-gaada la xiriirto fiilkaa baratay scholarship-yo waxaa jira iyagana ama hay-ado kala bixiyaan oo qofka waxay ka fiiriyaan inuu micnaha kalaan kale leeyahay oo fiilal kale soo galgalay oo maaragta dhanka siyaasadda wax kasoo taabtay dhanka socialka wax kasoo taabtay asagana waxaa laga yaabaa fiilkiisa inuu markaas yacni engineering ama wax lamid ah uu yahay marka kuwaas camal way ku anfacaysaa profilekaada oo aadee marka dadkaas camal kalaankal kale aad u taageeraan oo waxaa ka mid ah scholarship-yo hay-ado Jarmal ay bixiyaan oo qofka bulshada saas kalaankalka ugu leh oo ku ekaanin fiilkuu bartay micnaha aad u taageeraan marka taas waxaan kaga baxayaa markasta waxaa muhiima eligibility-ga fiiri danna requirements-ka kaa rabaan fiiri haddii marka wixii lagaa dalbado markasta waa ku khasban tahay laakiin masti waxay u badan yihiin relevant inay fiilkaaga la noqoto waxaa baratay shaqada taas halkaasaa uga baxayaa tan kale su-aasha saddexaad waxa waaye levelkaaga waa level fiican waaye marka 6 bilood waa ku gaari kartaa B2 level badanaa jaamacadaha waxay aqbalaan band 6.5 ay aqbalaan oo jaamacadaha ka wada siman yihiin marka u dhiganta B2 level so marka already waxaa joogtaa B1 waan runo dad kalena waxaa rabaa inaan ogeysiiyo British Council-ka wuxuu leeyahay app aad levelkaada ku ogaan karto writing-ka listening-ka iyo speaking-kaada levelkaada kuu sheegaya Play Store kala soo deg waa ka heli kartaa marka already B1 aa joogtaa 6 bilood haddaa u diyaar garowdo then waxa waaye levelkaas kor u qaado waa ku gaari kartaa imtixaankiina marka preparationkiisana aa gasho marka aad levelkaada kor usoo qaado marka intaasaan kaga baxaya waa mahadsantahay habaryar waxaan u maleynayaa inaa engineer cabdirashiid uu jawaabihiisii wada helay cali taakow
maanta oo aamina isoo qaba lahayd maxaa su'aal ma qabtaa mise talo kale ah noo soo jeedinay cali taaku may maqashaa mali maqla aniga horta ani waa ku maqlaa baay ha cali taaku mana maqashaa iska daa ka gudub okay soo weydii ditoresa waxaa joogta oo iyadan tiri hal soo qabto maxaa u qoran ditoreso qaali miya su'aal ma qabtaa mise wax kale habar ku daraysaa waa su'aalan qabaa inaan in weydiiyo oo tale ah haye horta dhammaantiin waa in salaamay ana waa markii igu horeyso oo aan soo galarto group waxaan u soo galana aad buu ii soo jiitay waxay anfacayaan ka arkay haye mahadsan waxaan rabaa aniga horto UK hadda imaaday baryaan joogaa waan ku cusubahay marka waxaan rabaa in aan wax bartana waan rabaa aamina walaashay qaralaa siiye aad bay waxay ugu taagtaagsatay in qofka waxbarashada hadday ka go'an tahay uu hamina u hayo waa masti inuu luqadda iska dhisaa haye and then luqaddii inaa iska dhisaa rabaa haye meesha ugu fiican oo luqadda iskaga dhisi karo baan rabi lahaa inaad iga caawisid aamina iyo yaasmiin haye aamina kusoo bood luqadda caadiga iska dhisida markaan ka hadlayo ta ugu dambayso oo waxbarashada aad u gelayso ma ka wado waxaan ka wadaa laakiin luqadda inaad keento heer ay noqon karto luqadaada labaad waa haddii aynan wax kuu bilownayn oo aad tahay waa inaadan ka xishoonin oo ABCD kasoo bilowdo hadda fursado badan ayaa jira oo luqadda ingiriiska lagu baran karo berigii annagu aanu yaryarayn oo luqadda ingiriiska aan baranayna hadda waa ka fursad badan tihiin dhallinyaradiina waqti fiicanna waa haysataan number 1 Facebook oo keliya haddaa gasho anigana xataa waa idinla soo wadaagi karaa yaasmiina intaa u sheega yaasmiin idiin soo qori kartaa waxaa jira dad bayska luuqadda kasoo dhiso hadday noqon lahayd dialectiga oo britishka ama midka maraykanka because laba lahjadood aa lagu kala hadlaa meesha la yiraahdo YouTube iyada oo dhan waa jaamacad free ah YouTube waxay ku xiran tahay hadba dhanka aad ka daawato oo aad ka gasho haddaad dhanka aflagaadada iyo ajaafaynta soomaalida iyo qaaqlayntooda haddaad ka gasho waxa waaye qaaqlayn lee dhegaysanay haddaa adiga depression kugu dhicin nasiibaan leedahay ood adiga xanuun ka qaadin laakiin haddaa dhinaca waxbarashada ka gasho meesha searchiga ah waxaa ku qoraysaa English classes beginner ama beginner English class class oo English aamino gabadhan waxay ku tiri ingiriiskan goor dhaweyd imid ingiriiska timaado ogahay waa ku socdaa ii kaada bilis macnaha waxaan ka wadaa adoo gurigaaga joogta ama labadayba isku wadi kartaa waa usoo socdaa step 3 waxaa waaye google-ka tag xaafadda ingiriiska aad ka degan tahay boosta koodkaaga ku qor boosta koodka waarata waa laba qaybood labada qaybood boosta koodka qayb iswadata iyo qayb kale iswadata ku qor waxaa qoraysaa local community college kadib boosta kood geliyaa lagu dhaha boosta koodkaaga geli waxaa kuu soo boodaya gurigaaga agtiisa community local communitieska ah marka communitieska maaha communityga oo dadka sida kale u caawiya lama rabo laakiin college waaye community colleges waaye ama adult educations waaye dadka waaweyn loogu talagalay luuqadda ingiriiska markaas dooro weliba waxaan kugula talinaa haddaad aad joogto England iyo Wales waxaa buuxisaa esol intaa kusoo qoraa esol waxaa waaye esol waa kaas esol aa ku qoraysaa oo ama local class of esol aa ku qoraysaa ingiriiska haddaa joogto waa luuqadda ingiriiska loogu talagalay dadka aan u dhalanin ingiriiska dadka luuqadooda koowaad aanay english ahayn ee
ajaaniibta ah sideenoo kale luuqadda loogu talagala waay halkaas ayaa ka bilaabaysaa hana niyad jabin waxa waaye si fiicana u baranaysaa garaamarkaa baranaysaa vocabularygaa baranaysaa iyo erayada isku xirkaa baranaysaa wax kastaa baranaysaa practiceaa samaynaysaa halkaasaa ka soconaysaa tallaabada afaraad waxaa waaye isku day inaad wax akhriso ilaahayo ay noqotaa 10 daqiiqo maalintii oo ingiriisi ah inaad akhriso isku day haddaad waddanka ku cusub tahay ingiriiska oo aad rabto inaad ingiriiska barato waxyaabaha kaa caawinaya waxaa ka mid a telefishanka waxaa geysataa subtitling amaba tarjumaada geyso telefishanka ingiliisha kugu soo tarjumaya luuqadda ingiriiska indhaha iyo qalbigaa ka baranaysaa sida uu isku raacraacayo maaragtay luuqadda waxaa laga yaabaa adoon si fiican naxwihii iyo u fahamsanayn iyo erayo badan oo vocabularies badan aadan fahamsanayn in erayo badan oo isku aadiso oo sentences ah oo sax ah inaad barato ayaa laga yaabaa tashanaad waxaa waaye idaacadaha VOA iyo BBC weli waxay qabaan ingiriisi la baranayo laakiin af soomaali ma lagu tarjumayo isla ingiriis kalea lagu tarjumaa ayagana waa dhegaysan kartaa waxaa u malaynaa 5taas tallaabo waa kugu filantaa waa ka bilaabi kartaa waana mahadsantaha u mahadsantaha abba aada u mahadsantaha waana qaadanaa taladaada اوكي هذا سؤال كلا قبتين سوقر ولا ريال هدي كلا نواسو قبقبينينا علي تاكو برو سؤال هدا قبت ما يحكوير دقولا هو كداي مهند علي تاكو وحوير دقها الله أحد يكاد على تاكو دغا دولا يدون سو مقلاي هذا ما garanaya I'm so sorry لكن smart ayaa waxa soo qoray house people learning disability dadka learning disability ka qaba iyagana maxaa xaalkoodu yahay okay haddii waxa aan ka hadlayno waxbarasho sare waaye iyo mid hooseba hadday reer galbeedka tahay iyagoo waxbarasho hoose cidna ma siiyaan iyo mid dhexe laakiin tan sare ayay dadka dibadda jooga siiyaan waxay qabaan system loogu talagalay dadka learning difficultieska amaba learning disability-ga qaba noocay doonta ha ahaato whether it is autism whether it is wax kasta ha ahaato dadka dhagaha la way qabaan dadka indhaha la way qabaan digriye ka soo baxayaan qofkii oo indhaha naafa ka ah haddaa adimada naafa ka tahay arrimo kaleeto lama odana haddaaba xataa maskaxda naafa ka tahay waxyaabo yaryaraa jiro dadka maskaxda naafada ka ala baro marka halkan waxaa waaye no one leave behind qofnana gadaal loogama tagaayo qof laga tagaayo ma jirto marka jaamacadda aad la xiriirayso ayaa weydiinaysaa sharcigooda iyo policyga kaga dhigan ardada learning disability or learning difficulties ka qaba waa mahadsantahay smart waxaan filayaa habbo inay fahamtay waxa aan dhahayo اوكي waxaan aan rabaa inaan ku daro aniga ilmaha Soomaalidu waa u sheegay markaan ku bilaabayay qorshahan jaamacadaha badankooda merit ah lagu bixiyaa merit uma maleynayo ilmaha disability ka qaba ama learning difficulty ka qabo in Soomaaliya iskuulada hoose laga soo dhiso waa arkay iskuulay yar oo dad dadaalay oo arday indhala iyo arday dhagala qaatay oo waxbara laakiin haddii adigu innaba ha yaraatee xataa aad qabto wax learning difficulty ha noqoto ama disability ha noqoto ama qofka inuu il wax ka gaareen oo il la yahay inuu dhagaha culus yahay ama dhag la yahay inay gacan ka go'an tahay inay lug ama farka go'an tahay waxyaabahaasayto dhan waxaa ku dari kartaa meritkan marka jaamacadda dalbanaysa scholarshipka exceptional waxaa la dhahaa exception condition oo gooni ah exceptional form aba laga buuxinayaaba exceptional form aa laga buuxinayaa haye epilepsiga waa u imaana yaasmiin ha dhamaysato haye yaas ku soco ha iloobina maxaan diyaarsadaa inaan uga xareysto scholarshipka yaxya 19 waxaa tegaysaa youtube-kayga yaasmiin kastan ku raadi 10 qodobaan dhigay oo ardayda u baahan yihiin sharci ahaan inay u diyaar garoobaan wax walba oo laga rabo waxaan kusoo noqonaa arrinta disability-ga meritka waxaa ku jira meritka in muxuu ahaa inaa iska wax ma la rabo because annaga saan u fikirno iyo si cadaankan u fikiraan isku mid ma aha marka ardayga maadaama hadda teknolojiya ay jirta arday badan oo si fiican wax u fahansan waa jiraan oo western countries kan la socdaan iyo dunida casriga ah waxaan arkay ilmo badan oo badanaa waxaa la weydiiyaa su-aal ah
la dhahay 100 xaraf ilaa 500 oo xaraf qor maxaa u dooratay jaamacadan iyo koorskan maxaase ku celinaysaa dadkaaga oo u qaban doontaa markaan wax ku siino maxaa ugu qalantaa adiga jaamacadan maalgelinteeda iyo scholarshipkan in lagu siiyo arday badan oo waxaan arkaa ayna ma la ogola in lagu qoro waa inaa wadnaha ka qortaa laakiin badanaa annaga Soomaali xataa wadanka annaga markaa imaanayni mayna garanayn sida wax loo sheego iyo sida wax loo yiraahdo because Soomaaliya aan ahayn oo dhaqankeenu kuma jirto iyo nolosheena laakiin hadda waxaa idiin sheegaa inaa yacni ku qori kartid waxyaabahaas oo kale inaa beeraley waa reerkeena dadka minority-ga aniga ka soo jeedaa reerkeena agoon waa aabahay ubadan ugu weynahay gabar haddaa tahay gabdhaha badanaa equal opportunity oo waxbarasho ma la sii dhaqaalaha yar wiilasha hooyadaas ama qoyskaas day waxbarasho lacag yar heli karaan wiilasha loo diraa oo iskoolada loo diraa gabdhahana hooyada suuqa markay wax kasoo gadgadaysa gabar waxaa ahaan jir hooyadeed caruur agoon la korso oo yaasmiin wax yar kaa dhex galo su-aasha aad ka jawaabo weysid qofka soo qoray yaa ii xeraynaya oo i caawinaya weli wuxuu soo qoran waayaa su-aasha qofka jamaal u qoran tahay dhagaha fur ee dhagayso adaa lagu jawaabayay daqiiqadii ugu dambeysay adigana weli su-aashaa wadaa su-aashaada laga jawaabayaa la soco marka please jamaal waxaan ku dhahay youtube-kayga tag waxaa taala tallaabo 10 tallaabood oo ardayga inuu sharciyo ku diyaarsado iyo wax looga baahan yahay scholarship-ka af Soomaaliya ku sheegay Yasmin Kastan ala dhaha tag meeshaas waxaas la soo dhageysta time-ka lagu leeyahay naftaada geli waxaas ka mid ah aniga bilaash anoo ku shaqeynayo iyo inta miiska ila saaran oo dan meeshaan inta gaar ka lahayn waxaan gelinaynaa waqti adiga naftaada waqtiga ogolo inaad gelisid soo fiirso wixii laga rabo si diyaarsa baasaboor shahaadada dugsiga sare waxyaabo badan ku jiro soo diyaarsa adiga marka muxuu ahaa merit-ka ama exceptional case-kaas ama haddii dhibaatooyinkaas gaarka jiraan waa lagu tixgelinayaa gabdhaha equal opportunity marka helaan Africa waxaas waa qoran kartaa 100 xaraf ilaa 500 xaraf Soomaali total way ka wareersantaa maalin kale soo qaadan doonaa oo aniga iyo Muhammad iyo Aamino iyo aan u soo diyaar garoobi doonaa sababtee noo dooratay oo jaamacadda u dooratay course-ka aad qaadanaysa maxaa u dooratay maxaa u istaaheshaan scholarship-kan lagu siiyo maxaase dalkaaga dadkaaga ku celinaysaa I want to change the world oo qof iska dhahaa saas la marba xataa CV-ga aniga naftirkayga markaan wadan ku cusbaa ma kasi jirin CV-ga waxaan ku qori jiray waxaan ka soo shaqeeyay dukaan Hebelow waxaan ka soo shaqeeyay wasaaradda caafimaadka waxaan ka soo shaqeeyay suuqa bakaaraha baqaar ku yaal aan ku qori jiray saas looma qoro wadankan waxaa qoraysaa wax meesha ka soo shaqeysay laakiin shaqada qaban jirtaa la qorayaa si ay ku ogaadaan waxaan ahaan jiray xiriirka muxuu ahaa macaamiisha waxyaabaha saasaa loo balbalaarinaa marka dunidan bedelaa keligeed ma ahaan doonto maalin kale aan keenaynaa qishash badan waa la idin siinaa idinka dadka ka faa'iidaysta Allah idinka dhigo intaasaa uga baxaa hal sac ka badan kuma jiro hal sac ibrahim maroynaa zuwi onto maal qofkan habo yaasmin horta waa ku salaamayaa waan ku salaamayaa muhanad dhammaantood salaamayaa muhanad basaan usoo koray inaan weydiiyo aabkii uu haddaa sheegayay muhanad walaal macaan aabka ma aad magaciisa ma fahmin ma hoos ma noogu soo qori kartaa macaayid ma noogu sheegi kartaa aabkii oo kala soo degay British Council-ka علي تاكو يا الله هاد لايه واكنايه British Council-ka waaye saaxiib waa تاكو محمد تاكو وحدو يا اللي يقر وحال يقر اوكي ايوه ما سنتين اي جماعه ما سنتين برامجka wadama barnaamij fiican waa barnaamij wax laga faa'iidi karo aad iyo aad baan ma sanaysaa waqti noo gelinaysiin علي تاكو هبر معان هدان قرنا سي aan ku caawino waa ku caawini lahayn wallahi sign language ma aqaan hadaan sign language aqaano waa ku caawini lahayn ma fahamtay soo saar muraayad xaashi intu sinooya xaashi ama xaashida noo soo diro ma yasaanu ku dhaasaan inta soo saar saas oo dhisaas taako soo saar he inta soo saar qofka computer science-ka la weydiinay aan ku jawaabne magaca horta magaciisa qofkaan mu jeedaa magacba ma wataba magac ma wato maxaan kuugu yeernaa aan ku jawaabne
كوا كاس warqad dhakhtar waaye warqad dhakhtar waaye كمبيوتر I think ساينس كمدك وحينا علي تاكو بعاو على الحمى يقول دلوي warqad dhakhtar هل waaye كاسا waxaa الله la هاي sameeyaa أمو عاونات الربا هل كاسا أو جلك عاوناد سوات الربا. فامو caawinaad u rabaa marka واي warqad قام تايبو يجري واجبي ها الله مسكين آه هاي ياسمين محن كيالنا علي تاكو من أنا مقلاي ما فهم جوني يا لو قاعد رادنا هي جوني ماشي لو رادنا واحد تيك توك على تاكو وانا قاعد على تاكو رادنا وحي لو ترى كرا لو ترى ما وصو وحبوسو قرعيه السلام كم انت عليكم. قاعد وحقو قرنا وفهمايا ها وحمو قرو يا على تاكو وحبو قري يقان ها هداي qoraalku سوقر fahmaya. قري قرالك هو قري يقان هدا وحو قرنو وهلايا قرالك وفهمايا اوكي سقف السلام لو عليكم قرك وين سلامين سيجاره كرمي. لو مامون كل سو حريره هبر قفنا وقر رال انك محمد وحير ويل يرو دغولا ماشي ما كجري وحي الرال نقو علي تاكو هبر ير قفنا وقرا على تاكو انا انيغا جاوني ولا حريراي انا قري علي تاكو وكل سو حريرنا اوكي هيا هاي محمد محاوي ديني اسمامو Maxaan waxaa ku weydiinaa yar hadda waxa ay dugsi sare dhameeyey هاي marka dukumiinti kastoo marka scholarship marka waa haystaa دوكيمنت هاي dukumiinti walba la iga baahan yahay waa haystaa هاي marka maxaa ii xalan marka arday wareersan waa ahee كسو علي maxaa haysataa suka kusoo celiye دوكيمنت maxamed waa ida meestiran yihiin oo ku dhahay haa marka maxaa caqabad kuga xaritaankii iyo wax saa u heli lahay caqabadii wey marka luuqadda hadda habar maanta laga hadlayo waa ka mahanad saacado badan oo galiisa maalin walbana waa noo yimaadaan maalinta kale noo imow waayo annaga hadda barnaamijku waa dhamaynayna hadda ma soo bilaabi karno laakiin horta waxaan ku waxa waaye abaa yaasmiin youtube-keeda gal habar yar wax badan oo already ku jiro waxaa laga yaabaa wax badan oo hadda adii u baahan tahay inaad fahamto inay meeshaasba ku jiraanaa laga yaabaa aye soo fiiri ma fahamtay kabacdi next dayga aan soo gelayno ya yaasmiin falow dhe ani falow soo dhe laakiin yaasmiin muhiim ah falow soo dhe yaasmiin next dayga aan soo gelayno hore noogu imow annaga waxaan soo gelaynaa 2 saac ingiriiska markay u tahay idinkana waxay idin tahay haddaad soomaaliya joogto ama geeska afrika waxay idin tahay 5 saac ama 11kii habeenimo idin tahay ya marka anaga oo markaas macnaha aad su-aashii weydiin karto wax walba weydiin karto laakiin yaasmiin a b c d tallaabooyinka aad raacayso oo dhan oo youtube-keeda ku diyaarisa ya uma saabiriin adigana sidoo kale habar yar youtube-ka soo daawo 10 tallaabo oo ardayga soomaalida ugu diyaar garoobi karo muxuu ahaa scholarship intuuna xaraynaa ku jirto soo fiirsada intaas waa mahadsantihiin haddaan سوق وكادي اوكي انجينير عبد الرشيد ضيور وحو leeyahay hadda youtube-ka live camera la soo gelinaa waa la soo gelinaa engineer عبد الرشيد waa la soo gelinaa youtube-kana live kana maxamed live kana youtube-ka la soo gelinaa lacala wixii ku dhaafay ya aye horaye هاي ماما هاي ساعدي برا كنت السلام عليكم قاعدني معنا طوي وما هتصنت هاي انت كسو قريب بشوك لمانتي وما هتصنتين معنا تبرير ayaa weer غير الله كسي هاي معاك هاي ayaa weer ماما waa mahadsantihiin insha هاي هاي آمن أباي آمن هاي أباي السلام عليكم عليكم السلام هاي اه